maantay booqasho ku yimid galmudug wafdi ay hogaaminayso Miss Anita oo ah qofka labaad ugu sareeya xafiiska UN-ka wafdi ay hogaaminayso aad iyo aad soo dhaweynaynaa oo mahad celinaynaa booqashada muhiimka ah ahmiyadda leh ku soo gaareen ama ku yimaadeen galmudug mahad celin kadib waxaan ka wada hadalnay arrimo muhiim ah oo ay ka mid yihiin arrimaha doorashooyinka guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan galmudug iyo dardargelinteeda sidoo kale waxaan ka wada hadalnay arrimaha amniga iyo galmudug dagaalka ay kula jirto argagixisada iyo guulaha laga gaaray runtii waxay ahayd fursad weyn oo muhiim ah iyo shir aad muhiim u ah iyo waqti ku habboon arrimaha doorashooyinka iyo arrimaha amniga iyo guud ahaan horumarka iyo howlaha ka socda galmudug inaan ka wada hadalno runtii aad iyo aad sida la wada og yahay muddooyinkii ugu dambeeyey oo muddo bil iyo dheeraad ah iyadoo dagaalku markii horeba joogto ahaa argagixisada lagula jiro waxaa socday dagaal looga soo horjeedo loogula dagaalamayey argagixisada al-shabaab oo guulo weyn laga gaaray guud ahaan dagaalkaas laga wada qayb galo Soomaaliya iyo saaxiibada beesha caalamkaba sidoo kale waxaan ku baaqaynaa in la gargaaro dadka ay dhibaatada u geysteen argagixisada oo ay ku dhibaateeyeen deegaanadoodii amnigoodii iyo noloshoodii iyo guud ahaan sidii ay u noolaayeen ay geliyeen qalqalka iyo qaribaadda geliyeen iyagoo ceelashii biyaha iyo maaragtay marinadii ay u marayeen sahid u maraysay intaba hore u dhibaateeyey hana miino iyo dhibaato geliyey waxna qaribay oo dhibaato u geystay dadkaas in loo gurmado la gacan qabto la caawiyo iyo in la iska kaashado la dagaalanka argagixisada guulaha la gaarayna laga soo wada qayb galo iyadoo dagaalku socdo aynan u istaagayn ciidamada geesiyaasha ah ee qalabka sida qaybahooda kala duwan aynan marna insha Allah gadaal soo eegayn iyo shacabka guud ahaan reer galmudug oo gacmaas haysta oo runtii la galay dagaal aan loo kala harin argagixisada runtii guud ahaan shacab iyo ciidanba ku bogaadinaya reer galmudug sida ay u tuseen ama u soo bandhigeen wacdaraha iyo geesinimada ay u geysteen cadowga waxaan leeyahay halkaa kasii wada horay u socda meel kastoo la joogo waxaan rabaa inaan ku gabagabeeyo guud ahaan arrimihi aan ka wada hadalnay inaan isku afgaranay si wanaagsan habsamiya arrimaha doorashooyinkana dardargelintooda iyo taabagelintooda iyo in hore loo socdo si ay Soomaaliya dowlad loo dhiso doorasho loo galo aad iyo aad u mahadsan tahay mar labaad waan soo dhaweynaynaa wafdiga